عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا أونلاينka ku saxmay meel kasta joogtaan si kasta ay maqaysan ku soo dhawaada cashirkii afraad ee course-kii iBrushada maadada xisaabta. maanta cashirkeena waxaan ku saabsanaa doonaa insha Allah division ama sida tirooyinka la isku qaybiyo. insha Allah dhowr example aan qaadan doonaa markaan qor numberka. Example 1 note. Example 1 waxaan rabnaa inaan isku qaybino waxaan rabnaa 6 iyo 10 inaan u qaybino 4 markaasi koodii qaybta waxa ay ku xiran tahay mar walbo ku dhufashada. cashirkan wuxuu daba yaala cashirkii ka horeeyay. haddii cashirkii ka horeeyay aad si fiican aad kaga soo xifdisay jadwalkii aan idin qorayay insha Allah aad si fiican soo xifdisay qaybta ma ku adkaan doonto insha Allah. marka just waxaan rabnaa inaynu 4 ay 16 aynu u qaybin 4 markaasi waxaa godkan halkan god ay calaamaysanaysaa. waxaad leesaa number haddii 4 lagu dhufto halkiinayo ma jira uu jira laakiin point iyo waxa baa soo galay laakiin aniga point uma baahnayn. marka waxaad leedahay number haddii 4 lagu dhufto halkiinayo ma jiro sababtoo ah maxaa waaye haddii hal aynu ku dhufano 4 waxaa soo baxaysa 4 way ka badan tahay hal way ka badan tahay maxaa sameynaysaa marka waxaa dheedan walba waahi wax ka yar meel uu soo dhaweynayo waa la heliyaa oo maxay 4 lagu dhuftay eber oo ah eber hal way qeer tahay idan uu soo dhaw markaas korba waxaad saarnaysaa 0 marka kora 0 saartid labadan ay isku dhufanaysaa ebertaas waxa number shay ah ku saartay ayaad waxa ku dhufanaysaa 4 taas eber 4 ku dhufo waa eber sharciina eber wax kasta oo lagu dhufto eber baa soo baxay. saas markay ay tahay waad isku darays waad kala jaraysaa waxaa hal laga jaray eber maxaa soo bixi doono hal 6 meesha taasho hooskan inta soo deji hoos soo deji then marka aad soo dejiso hadeertaan laba god ay noqdeen marka waxaad dheesaa marka number haddii 4 lagu dhufto 16 keenayo jadwalka hadii soo xifdiso waxaan qanaysaa insha Allah 4 ku dhufo waa 16 kala jar marka علامة كجر تنصب لح كجر إبر حلال كجر إبر مركا هذه أي نقايبينه لح يتمنى هذه مفروق قايبينه وحاصل بحيث تأفر. سؤال شيء أم إكسامبل كي أم إكساس كواد كش خيسي سيدي بانك أغانا يا إكسامبل كان عن كش خيي إنه إيه سحية هاي إنه إيه غلدية وسؤال إذا ماش كجرته مركا ما حد سمعني سامر waxaad sameynaysaa jawaabta ku soo baxda ama question tiginta ku saaran ayaad waxa ku dhufanaysaa divisor qaybta loo yaqaan. horta ma magaceed aan sheego kan waxa loo yaqaanaa dividend wixii soo haro oo baaqi aan waxa loo yaqaanaa reminder baaqi midka oo qaybiya waxa loo yaqaanaa divisor wixii soo baxan waxa loo yaqaanaa quotient. kadib markii uu soo baxdo waxaad sameynaysaa checking waxaa lagu sameeyaa quotientiga oo q ah lagu dhuftay calaamadaas ku dhufsho qaado divisorka lagu daray reminderka checking saasa ku sameynaysaa
quotientigaas number kor kuu fuulaad waxaa ku dhufanaysaa divisorka kadib markaad ku dhufato wixii kuu soo baxo waxaad ku dari doontaa insha allah baaqiga markaasi waxaa la rabaa inay kuu soo baxdo dividentiga aan sameynaa mar inta noogu sameey kan iyo kanaad isku dhufanaysaa waad kala hormarin kartaa saarto sababtoo ku dhufasho iyo ku dar waa la kala hormariyaa hal mar si kala hormarinta inta soo labo lagu dhuftay 4 waxa waaye 8 soo kala hormarin kan inta soo mar 4 lagu dhuftay labo waa isku jawaabti صح قدرتنا واسبه كلا 3 lagu daray labo waxay la mid tahay 5 kala hormari labo lagu daray 3 always waxay la mid tahay waa 5 laakiin ka jar iyo qaybta lama kala hormari karo ka jarta aan fiirino 4 laga jaray 3 waxaa soo bixi doono 1 kala hormari 3 laga jaray 4 waxaa soo bixi doono -1 way kala duwan tahay qaybta toban loo qeybiyay 5 waxaa soo bixi doono 2 5 loo qeybiyay 10 waxaa soo bixi doono 0.5 marka way kala duwan tahay xaqiiqatan laakiin ku dhufasho waa kala hormarin kartaa hay hal mar inoo kala hormari sheekada inta lagu sameeyay kabacdi afartaas waxaa ku dhufan doontaa quotient oo 0.4 waaye point ku jiro waa eber 4 lagu dhuftay 4 kabacdi cashirkii hadda la soo dhaafay waxay la mid tahay 4 ku dhufo 16 waxaa qornaysaa 6 maxaa wada tahay 4 eber ku dhufo eber halka wad ku dar inta xanuun soo bax marka 16 xanuun soo bax marka xaas waxa ku dareynaa reminder maxaanu maanta eber isku dar mar 6 eber ku dar waa 6 oo qor hal eber ku dar waa hal markii aan inta aan soo sameeyo waxa la rabaa inay jawaabtaan ku soo baxday ee la mid noqoto dividend حد اسكو بدنا توني لح سير درادي سؤالش اكزامبل كشقيني صح وي اكزامبل تو اما كان عملي تاع نودونا example toonade waxaynu rabnaa inaan qaybno afro inaynu qaybno 8 oo 2 waxaynu rabnaa example kan 802 inaynu qaybino 4 sidee baan ugu qaybinaynaa ma isdhiibisid waxaad leedahay number haddii 4 lagu dhufto 8 keena ay raadinaysaa number haddii 4 lagu dhufto 8 keena ma jiraan waa kii jadwalka soo xigtay aad buu garanayaa waa 2 labadiiba waxaad qornaysaa korkaas aad qornaysaa marka meeshaad aad qorto waxaad isku dhufanaysaa labadan 2 iyo 4 isku dhufanaysaa 2 4 ku dhufo waxaad soo bixi doontaa 8 kala jar marka 8 dadka jar waa eber كبعد جديدكم waxaan ku xigo ebertaas hoos ikeen marka ebertaas hoos keento waxaad leedahay number hadii 4 lagu dhufto eber keenayo waa eber ku qor eber lagu dhuftay 4 waa eber ka jar waa eber maxaa ku xigo number 2 hoos keena waxaad leedahay 4 number lagu dhuftay oo 2 keenayo waa la heli karaa 4 number lagu dhufto 2 keenayo laakiin jajab waa 0.5 na in kor la saar la maro
حاسمينيسا نمبر هذه أفر لو دفت لبي كينايو على أفر لو دفت هلا دي دان واك بدنيسا أفر إن خمسة عدود أدي أنت أفر نخت مكجر ميسا أي أفر لو دفت هل أفر نختين من ونوبات هل محاكير إبر كون موسى إبر كورتان صارت أفر دان كلوفا ناس أفر إبر كلوفا waxay la mid tahay eber labo laga jaray eber waa labo marka waxaa la rabaa baaqigaaga wixii inta kugu soo haro reminder ahaan inay ka yaraato numberkan divisorka loo yaqaano always saasa laga rabaa mar kasta fiir aa kala jarno 8 ka jar eber afar way ka yartahay ebertana soo dejina eber ka jar eber afartan way ka yartahay divisorka inuu weynaada mar kasta la rabaa laakiin haddii inta oo numberka baaqi uu ka weynaado oo kan uu yaraado ama marka labadan aan kala jarto oo kan uu yaraado qalad baa meesha ka jiro marka hal mar aan sameeyno checking sax miyaa mise qalad waa meesha quotientii wax kor noo fuulay ay waxaa ku dhufan doonaa afar kor maxaa noo saaran waa 200 soo ah waxaan ku dhufanaynaa divisorku ah afar isku dhuf ku dhufashada dadkan afar eber ku dhufo eber afar eber ku dhufo eber afar loo ku dhufo 8 markii divisorka equation tii isku dhufto waxaan ku dari jirnay reminder maxaa 2 waa tanato ka bacdi isku dar 2 oo ku dar 2 kama waxaan ugu dar ma yaalo isku soo dajiyo 800 lagu dar 800 marka waa fi isku fiirnina isku midna divisorka iyo waxa noo soo baxa إن اسكو بدينا عملاء يسوى اسكو يمكن كبعد example 3 نوده example 3 نوده ريكن كستو شان over سدح لو لح 5 divide by 5 just وحاربنا يعني اسكو قايبينو 540 سدح كون 260 aan waxaan rabnaa inaan u qaybino 5 sidee baynu u qaybinaynaa first waxaad leedahay number addition lagu dhufto 5 keenaya ma jiraa yes waa hal 5 ku dhufo gives you 5 kala jar marka 5 ka jar waa soo 5 waxa ku xig marka afar afartaas hoos isoo deji ka soo dejiso waxaad shan noo dhufto afar keenayo ma jiro shan hal ku dhufo daadana shan naqana inta shan naqanayso mana ka jarmayso waxaad sameynaysaa shan hal waxaa ka yar waa eber ku dhisan marka ku cisaarto eber shan ku dhufo waa eber afar eber ka jar gives you afarta kan numberku ku xiga hadan hoos keenaysa afartan dad soo dejistay maxaa ku xiga 3 hoos ii keen number of division u dhufto 43 keenay ma jiro laakiin waxaa jira number oo soo dhaweynayo number hadii 5 aan ku dhufana 43 na siinaa xaqiiqatan ma jiro waa jira laakiin point waa marabo laakiin waxaan rabnaa number hadii 5 u dhufto 43 toos noo siinaa hadaan helinin number walba soo dhaweynayo marka uu soo dhaweynaa aan dhahay waxaan ka wadaa number oo hadii 5 lagu dhufto 40 keenayo number hadii 5 lagu dhufto 40 keenayo 8 waa xaqiiqatan laakiin 5 9 inay soo dhaweys maxaa u diidaa sabab mutqana waxaa lagu jeedaa 5 hadii 9 ku dhufto waxay noqonaysaa 45 sax 45 43 ma ka jarmayso kor hadii 43 jirto 45 hoos jirto kama jarmayso 3 ka jar ma ka jarmataa hal iyo soo qaad inta halkaas markaas soo qaato ونور qaato 5 ka jar 5 3 ku dar baa 8 inta way qaataa 3 afar ka jar ku dar din ma yaa meel ka doonto dib mo marka ku badanaysaa ma ka jarmayso maxaa sameynaysaa mar walba waxa dheesaa sagaal hadan ku dhufano sagaal 8 hadan ku dhuf 8 waxa ku dhufataa 5 waa 40 43 laga jar 40 waa kala jarmaysaa macquul waa kan marka ay kala jarantana waxa loo baahan yahay numberka soo baxayo waxaa la rabaa inuu divisorkaaga uusan ka badanaan hadda 8 isticmaaleyna laakiin todoba maxaa noo diiday
todoba shan ku dhuf soddon iyo shan iyo shan afartan iyo saddex haddii aynu soddon iyo shan ka jarno maxaa soo haray shan saddex ku dar sideed sideeda soo harayso sideedna shan ay ka weyn tahay sharcigaasaa jibin sharcigaasaa anigu ku haystaa hay marka maxaa inoo soo dhaweynayo sideed soo dhaweynta waxaa rajeynaa inaad fahanteen sababtoo waxaa la rabaa markii oo numberka la kala jaro numberkan numberkeer inuu soo baxaa la rabaa sideed shan ku dhufa dartaan waa afartan eber saddex eber ka jar saddex afar ka jar waa eber had maxaa aragteen shantan inay saddexdan ay ka yar tahay saddexdan ay yar tahay shantan ay weyn tahay saasaa la rabaa saddexdan dada soo degsatay maxaa ku xigo saddexda labada hoos keen adana number haddii shan u dhufto soddon iyo laba keenayo ma jiro maxaa soo dhaweynaya marka shan lix ku dhuf haddaan dhahno soddon ay noqonaysaa shan todoba ku dhuf haddaan dhahno soddon iyo shan ay noqonaysaa soddon iyo shan inta waaba ka badan tahay mana anfacayso laakiin shan lix ku dhuf aanu soo dhaweynayso ah soddon haddii ka jar laba soo baxayso waa ka yartahay saasaa la rabaa marka lix kor ii saar lix shan ku dhufo waa soddon inoo kala jar marka 2 minus o 2 3 minus 3 o saas markay tahay saddexdan waa soo degsatay labadaas waa soo degsatay lixdaas soo deji number haddii shan lama dhufto 26 ku siinayo haddii shan lix ku dhufnaan soddon inay noqonaysaa inaga badanaysa afar anaga weynanayso marka jarmaysa soddon haddii inta la keeno marka jarmayso hay shan ku dhufdaano waa 25 way ka jarmaysaa way ka jarmaysaa bis maahane marka ay ka jaranta numberka soo baxayo numberka inuu ka yiraahdo markasta maskaxaha ku hay shan afar ku dhufna diila hadda way ka jarmaysaa shan afar ku dhuf 20 haddii la kala jaro waxaa soo harayso lix soo harayso shanna way ka weynta sharcigaas inaa meel ku qorata asna isku day kabacdi waxaa noo saartaa shan ku dhufo 25 waxaa la rabaa inay ka jarmayso ha ka jaranto maxmee marka ay ka jaranto wixii soo baxayo inay numberka meeshan ku saara ka yaraato kala jar waa hal hay hal iyo shan yaa yar hal yar lixdaas waa isoo dejisay shan ku xigtay soo dejo waxaa rabnaa number haddii shan u dhufto 15 keenayo haddii toos loo helayo tooska u isticmaalaysaa oo eber oo soo baxay baaqi macquul shan eber waa ka yartaa eber ayaa u jira kabacdi shan haddii lagu dhufto 15 keenayo waxaa usoo dhow maa waxaa keenayo saddex shan ku dhufo waa 15 kala jar oo just waa dhameynay example-kan laakiin waxaa xaqiijinaynaa su-aashan waa in ku shaqeyno sax ima sax miya wa qalad miya sidee baan ku ogaanaynaa hadda jeekaweynaynaa sidee u jeegeli jirnay waxaan dhihi jirnay questiontigan waxaynu ku dhufi jirnay numberkan divisorka loo yaqaano wixii soo baxo waxaynu ku dari jirnay baaqigaas aynu baraweyna isoo guuri numberkan questiontiga isoo baxay waxaa ku dhufanaysaa numberka divisorka oo ah 5 isku dhuf aniga waa buubsiisanaya sababtoo ah ku dhufsho ashirka hooyaa ku sharxay 5 saddex ku dhufo waa 15 halaad wadataa 5 ku dhufo 25 halka wadato geey laba wadato 5 lix ku dhufo 30 labada geey 30 saddex wadataa 8 5 ku dhufo 40 iyo 40 saddex wadato geey 43 afar wadataa 5 eber ku dhufo waa eber afartaada ku dar 5 hal ku dhufo waa 5 kabacdi waxaad ku dari doontaa numberka reminder ku soo baxay waa baaqiga maxay soo baxay oo asal madoorshaha ku dar waaye asal madoorsho waxaa la wadaa number haddii lagu daro wixii la soo baxay la wada asal madoorshaha ku darta waa eber numberka ku darto asalka madoorna ku dar ay ka jira asal madoorgood waa eber ku dhufasho iyo qaybna asal madooryahooda waa hal saasoo kala barta just waa dhameynay this example kaleetood noo qoro example 4 waa noo dhiman insha allah example 4 10
aad ula socdo xisaabta waa fududa wax adag ma jiro waa inaa basics soo dhista bas ay u baahan tahay waxaynu rabnaa waxaynu rabnaa 5643 inaynu u qaybino 25 maxaa lagaga baahan yahay marka waxaa lagaga baahan yahay inaad soo raadiso number haddii laba lagu dhufto 5 keenayo ma jira maya maxaa usoo dhow laakiin labo lagu dhuftay labo kabacdi 25 ana soo qaadaysaa meel gooni oo xariiqmad adii falfalaad ama gooni u samayso meeshaas baad tegaysaa ama iyo xariiq sorry ka intaan ku falfalaada 25 soo qaadanaysaa waxaad ku dhufanaysaa numberka u soo dhow hadda maxay ugu soo dhawaanay labo haddii labo lagu dhufto 4 soo dhacaysa 5 haddii laga jiro hal saas u soo dhaw waxaad shan xamsu dhufaysaa numberka ugu soo dhow oo ah labo 5 ku dhufo 10 meeqa wadataa hal labo lagu dhuftay labane waa 4 sorry halka wad ku dar waa 5 maxaa isu bax marka 50 konton isu bax kontonkan labadaas gud u horeysa soo qaadanaysaa oo ah 56 markaad soo qaadato waxaad ka jaraysaa numberka inta kaga soo baxay oo ah 50 kala jar aan soo baxay 6 marka aniga meesha u dan layaa waa halkan waxaa la rabaa markii aad kala jarto inay soo baxdo number 25 ka yar inay soo baxdo haddii number 25 ka badan ay soo baxdo ma isticmaali kartid numberkaas oo ah labo hadda ujeedkana ugu weyn wuxuu ahaa inaynu haddii aynu kala jarno intiina iskaga dhigeen haddii aynu kala jarno number 25 ka yar oo inuu soo baxo kabacdi numberkaas labada waad isticmaali kartaa markaad kor saarto sida dad ku dhufshada sameynaysaa kana ka bilaawaysaa koodi kabacdi aad kaas ku xijinaysaa labo lagu dhuftay 5 ka bilaaw labo 5 ku dhufo waa 10 maadaama laba gud tahay labada gud aad ku adinaysaa labo 5 ku dhufo waa 10 maxaad wadataa labo ku dhufo waa 4 halka aad wada ku dar waa 5 kala jar marka 6 ibar ka jar 6 5 ka jar ibar intaan la sameeyay laakiin meel gooni ah ku soo sameeyay haduu laga yaabo number 20 in ka weyn oo intii ku soo baxo oo qiyaastii ka xamaad markii asaas tahay numberka ku xigo oo ah 4 ayaa hoos keensanaysaa marka soo dejisato waxaad dhigaysaa number haddii labo lagu dhufto 6 keenayo waa iska macruuf waa 3 laakiin hore kama isticmaalaysid tijaabooyin badan aad soo maraysaa inta aan xirkii hore way numberku soo dhow maxaa waa labo haddii lagu dhufto oo 6 keenayo waa 3 soma 25 isoo qaad waxaad ku dhuftaa numberka keenayo ama soo dhow oo ah 3 5 ku dhufo 15 maxaad u tahay 3 lagu dhufo halka oo today 75 numberkana soo qaadaysaa marka oo ah 64 waxaad ka jiraysaa 75 ma ka jiranta sababtoo 75 sidaas daraaddeed 3 ma isticmaali kartid hadhowt inta waxaa kuu soo bixi doonta haddii 3 meesha aad saarto inta waxaa kuu soo baxaysa 75 64 na 75 ma ka jirmayso ay 3 way ugu badan tahay marka 3 haddii ugu badan tahay 3 maxaa ka yar oo kusoo xigo waa labo intii saar marka meeshaan saarto sidaad samey 2 times 5 waa 10 oo ii qor maxaad wadataa 1 2 times 2 waa 4 markii ay tahay halkaad wadata ku darso waa 5 kala jar marka 4 ibar ka jar waa 4 laga jaro 5 waa marka kala jarto waxaa rabaa 5 markii inuu ku soo baxo 4 ay soo bax meeshaan 25 inay ka yartaa waa iska muuqata soo صحيح وي كبعد نمبرك كحيقة أو 3 هوستاني كان يزودجي
markaad soo dejiso godka dhinacaas iyo midka dhinacaan waad iska dhaafaysaa shantaas iyo saddexdaas waa iska dhaafaysaa maadaama hadda saddex god ay noqoto sooma haddaatee 64 markaad kana iska dhaafinay kan 2 iyo 6 isku burburin sooma had saddex noqdeen intan 2 waa midka geeska iyo mid geeska waa iska dhaafaysaa waxaa soo haray intan waa ku soo haraysa intan 14 waxaa dheesaa number haddii loo dhufto 14 keenayo waa todobo صح انت معنا عم نوتك لا سيده هذا صبر سيده سمينا لبعتي شنتان waxaad ku dhufanaysaa numberka u soo dhow waxa u soo dhow todobo ku dhufay todobo shan ku dhufo todobo shan saddex wada todobo loo ku dhufo todobo loo ku dhufto 14 saddex ku dar 175 175 hadii inta keeno ma ka jarmaysaa maya sababtoo 143 leeyo taashay sidaas daraadii todobo waa ugu badan tahay ma isticmaali kartid todobo hadii kugu badan tahay todobo maxaa ka yar 6 sida hadda ku barweedaan 25 aad waxa ku dhufanaysaa 6 6 shan ku dhufo 33 wadataa 6 loo ku dhufo 10 ilaa 3 ku dar 150 صح wali waa ugu badan tahay 6 xataa waa ugu badan oo 150 da inta keeno anaaba waxa la weeyelnaa meen 7 galaabi dib waa ما markaas lixda kugu badato xakusu xig lixshan ku baraway 25 times 5 555 2 wata 52 10 2 ku dar 125 tana u soo dhow marka oo ah 5 shanta intii saar marka aad shanta intii saarto shantan soo qaad kan ku dhufo haddana kan ku dhufo 5 ku dhufo waa 25 maxaad wadataa 2 shan loo ku dhufo 10 labadaad wada toogay 8 ii kala jira mar saddex shan jar kama jaranto afartan iyo soo qaad 10 iyo khana 10 shan ka jashan shan saddex ku dar siyeed inta bay qataasho saddex laba ka jar waa hal ka jar eber marka waxaa la rabaa numberka baaqi ku noqday inuu kan ka yaraado just ma kiira sax laakiin meeshan mar hadii 25 xataa bas ay noqoto wax ka badan iska wada ee la faxata qalad ayaa ka imaanay waxaa la rabaa number inta saaran inay mar kasta numberka baaqiga numberka inuu weynaado oo kan u yaraa always ala yaraa just waa ka shaqeynay sax miya qalad miya hal mar jeekan ay sameyn doonaa insha Allah laakiin jeekan adii isku dayno inaad tamasiyada le soo mar hal example kala ku diri doonaa example 6 ama example 5 jeekin wax weyn ma shala daafanto jeekin aad sameyn karto kani kana isku dhufanaysaa 220 waxa ku dhufanaysaa 25 wixii ku soo baxo plus 18 aadaysa numberka inuu ku soo baxaa haddii numberkan ku soo bixi waayo anaga ayaa qaldan oo waxaan ka shaqeeyay laga yaabo inaan wax qalday laakiin haddii numberkan ku soo baxo waa saxanahay marka example 5 iyo qor saddex gud ayaan ka dhigi doonaa kabacdi ku celceli insha Allah easy noqon doonta 204 intii leh 6 kan refer saddex law amal ila marka waxaynu rabnaa 65 432 inaan u qaybino 204 si islaamid oo cadaalad midna mid kale uusan dheeraanin inaan u qaybino ayaa rabnaa sidee sameynaysaa marka waxaa dhigaysaa number haddii laba lagu dhufto 6 keenayo waa iska macruuf waa 3 soma laakiin aniga 3 inay taa waa ogahay oo yani si hadda usoo baraweynayna saddex ayaa usoo soma 204 soo qaadanaysaa waxaad ku dhufanaysaa numberka soo dhow ah 3 afar ku dhufo 12 hal wadataa 3 ku dhufo eber halka oo tugay hal 3 loo ku dhufo 6 numberkaas soo qaadanaysaa 654 waxaad ka jaraysaa number inta ka soo baxaa 612 kan waa 6 kala jar 240 سمع وحاول مركل كجرو نمبر كان يكير يسوي حارة سيد سدح واستعمال كلا جست سدح انت يسار مركات يسار سدح سياد سمي كان كله فوق كان كله فوق كان كله
alxamdulilah. 3 afar ku dhufo waa 12. hadda maadaama dad laba god soma laba god sax god laba god qorin had 3 god maadaama tahay mid 3 qorin 3 afar ku dhufo waa 12 maxaad wadataa hal 3 eber ku dhufo eber halka waa tugay waa hal 3 laba ku dhufo waa 6 kabacdi kala jar afar laba ka jar labo 5 afar ka jar waa afar 6 ka jarna maxaa ku xigo 3 intii kan waxaan rabnaa hadana number labadaas god iyo labadaas god always waa iska dhaafaysaa godka geeskan iyo haddii inta hal god kaaga soo har iyo laba god haddii kaaga soo harta labadaas waay labadaas iska dhig labadaas iska dhig laba wax lagu dhufto afar keenaya waa maxaa waay labo kabacdi 204 aad soo qaadaysaa waxaad ku dhufanaysaa labo 2 times 4 8 2 times 2 2 times 2 maxay soo bax 408 423 soo qaadaysaa waxaad ka jaraysaa 408 soo bixi doon qaabbuusinayaa waa 5 1 15 baa soo baxayso 15 كم كيرو صح لو استعمال كتابك لب انتي صار 2 times 4 8 2 times 0 2 times 2 4 كلا جر 6 كجر ما كجاموتو حديد كده لبا خليك سوقات 8 6 كجر لبا 6 كدر 5 انت بخاطر عشان لو هديت هالقاده وجده هل يور كجر وهل افر كجر 0 waxaa ku xigo labo iyo deji waxaa dhahayaa number haddii laba lagu dhufto hal keenayo ma jira ma jiro laakiin maxaa jiro number soo dhaweynaya laba lagu dhuftay eber soo dhaweynayso eberta koraysa eber afar ku dhufo waa eber wax kasto eber lagu dhufto always waxaa soo bixi doona kala jir hadan laba hal ka jir laba eber ka jir laba 5 eber ka jir 5 hal eber ka jir waa hal يعني إبرت مركا ماشان صار وحاول الجيدة هدي ماشان هل صارتو هل أدا إنت صارت أنت وحايزو بحد أنت لو بخولي أفر عم بروينو هل لو بخولي أفر لو رفضي هل وأسر مدورية لو بخولي أفر الصبح لو بخولي أفر أنت بكجر ما يسامر وقوة بدت هل محاكير إبر كوني سامر إبر تايمز 4 وإبر واحد كستو إبر ورفت إبر اللي هذا وقت واسكنون إبر إسكتح بعد كلا جر لو إبر كجر لو بس الدورشة كجر واي واحد بس بدلين جستي سدحس أنت سكسامبل أقسم دونا وحن قدس دونا جيكن لونان إنه لاقيها من قوات كاتو كبعدي إن شاء الله كان قوات كبلاوينا كان جيكن كيسين تصار لاقيها حجرتان جيكن كان نوب كان إيجاسو بلاو ولو بقول بوتيشن كانت كل فنسا ولو بقول بوتيشن waxaan ku dhufunaynaa numberkaas waa 25 isku dhufo 5 ku dhufo 25 loo wada 5 loo ku dhufo 10 loo dugay 10 loo hala wada 5 loo ku dhufo 10 halka loo dugay 10 loo 5 ku dhufo 10 hala wada loo ku dhufo 4 halka loo dugay 5 loo ku dhufo waa 4 isku dar 5 loo 6 5 markii isku darto oo ku dhufashada la had aasmayso wax kala isku macaan darin ku dhufashadii laba gud ay dhaqato markii isku daro meeshaas ka bacdi waxaad soo qaadaysaa numberkaas oo reminder 28 iyo udar 8 ku dar 13 hal ayaad wadataa halka inta ku dar waa 3 hal ku dar 4 6 5 isku soo dajma maadaama wax lagu darinaya just waxa u jeedaa jawaabtan waa 5640 iyo 5640 in isku mid ay yihiin just wax bay isma dooriyaan haddii saas tahay su'aashaadii ama example-kaagii has become right sax buu ku noqday markaas hadeertaan kan aad isku dayno kan isku dhufo wixii ku soo baxo kan ku darso la dhibna hadi easy wa easy marka dhib malaan kan aad soo qaadanaysaa loo oo kan waa kiyaasmay 320 soo qaadanaysaa waxaad ku dhufanaysaa 204 isku mid waaye mid ka arto hormaray 3
20 times 204 isku dhufo marka 4 ku dhufo 4 6 كذا isku dar eber 8 2 5 6 kabacdi waxaad ku daraysaa baaqiyan waa 152 204 isugu dhufanay 320 wixii soo baxo waxaa ku dari doontaa baaqiyan just waa isku dhufanay intaa isku dhufan sidii muuqato waa 320 ugu dhuftay 204 jawaabtana soo baxda oo ah 65280 kadib baa waxaad daysaa plus waxaad ku daraysaa baaqiga oo ah 152 isku dar eber lagu ku dar lagu 8 5 ku dar 8 3 meeqaad wadataa hal kale aad isku dar 3 hal ku dar waa 4 5 wax lagu dar meel isku dar just markaas soo dejiso markaa isku darto jawaabta ku soo baxaa fiirnaysta oo ah 65432 intana fi 65432 waa sida uu shaqeysay waa sida ugu saxameed yani hadii saas isku mid noqoto jawaab الصحص مقدر كبعد اكسس لان قردونا ان شاء الله جوابي زمان كان يكون قردونا exercise هذا شن waa afar xabo kan ee u qaado b c d answer ku dalkan aan ku qoraya marka tan koowaad waxaa soo bixi doonto questionti ahaan tan koowaad waxaa soo bixayso 6 reminderka ama baaqiga باقي محاولين نمبر مش سكوار دون أول جدة وحصل دون أفر ريمايندر نقول مدة أفر كويشن تيجي وعلى مدة لا طلبات أما بي كويشن تيجي وعلى مدة سيد حيتون ريمايندر كانوا حاصل بحدونه 2 سي كويشن تيجي حاصل بحدونه الله بيتون reminder kan waxaa la taqdoona insha Allah raatiku tan ugu dambayso ama d question-tiga waxa soo bixi doono sagaal reminder kan insha Allah wuxuu noqon doonaa 37 marka cashirkeena halkaas ay gudahay aad ku dheeraan insha Allah waxaan rajaynayaa inaad fahantiin oo aad ka faa'iidaysato insha Allah الجنة كانت كصوبيرة سياد أوس عطانا عشرة كان كحي سبلا سيدو كان حيلو من إنا حساب أبي ينفوضه لكن محبا انتهي قف أبا إذا هذه أبا انت حساب إذا نقوبا انت مكو أسكوبا انتيني اسكو يعاه كان كان سبسكرايب بالوصمة 10 كحيلو إفراكشن إن شاء الله مالينتا بريتوري إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.